ورحمة وبركاته. إن شاء الله تعالى كلمات حصوصنا إنه إلهي سبحانه وتعالى من ربي قوين حصوصنا إنه سرن دونا وحنا ريكو وبنكورن دونا موضوع كسابسنا اليقين. يقينتو ومرتبة كمدة مرتبات كوصر ري إيمانك يقين في عربي عادي وحل هذا والعلم وإزالة الشك الشيء ناد أقون ولا هاي وحشكي لما كانوا كاجرين اصطلاح الشرعي أنا وحكوت الماما العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل وعلم دم يستيران هدي علم كله لوجود دايو قف وحبو معلومة أبوه غانية وحبو أقونه يالن هي لكن وحنا لقى بعض الشبهات هدي اللي جوسها أروريو إنه كبشكيو في هذا الله شيء هدي عد كله هشوا وحكلا يواخ خرده إن شكي بخا قالوا لكن يقين توحى لين هذا بيلي إنه علم دم يستيران وقفك شبهات كلن انتو يسكفوا جاي ادنى شك انو قليني وحمرني اما وح تردده انو كو ايمانينين كاسو وليبا بيدا هدان واجبين يا مكان سنية ان لو عمل فلو امام الجنيد او علماء هوره علماء تربية كميدها نوح ليه هي يقينته واستقرار العلم بليه وعلمه إنه الصقمه وأنه يسبدل التغيير وحبطونا أنه كبعين مركا شيء قد يقين سطي وشيء كقد بين مرتبة العلم وشيء سنبا الرميسي وأن لوغ الشك قبل إن يسبدلوا كله أما الشك وكي ماضو مراتب ليه بالله هذا يقينتو كلا سري وكلا بضمتي كلما أدلة هي علمه يا قوت سيكر النبا يقين تقفك ويسيح ويسته صادر عند العلماء ذو حيشيغا صدح مرتبطات مرتبط دكوات بين هذان علم اليقين بكو شيغا ومرتبة شيغا أدلة دي سي انت أرور سطي إن لم يتحي قف أركي أوكالي وهو حيكون الماميان إن قلبيا وأركيسو شيء حتى هدانا دو أركينين إيش أنا كأركينين إنه قلبي جاكو أركيو وحيكلو كنت المامان وشيء رب قلبيا ورميسانتي مرتبطها كسر ريسبة ترتبي هذا أنا ومرتبطها عين اليقين شيء إن إيش كو أركتي wixii warkiisa lagaaga warramay aad rumaysay iyo waxaad indhaha saartay isku mid maaha inaad markaasi sidii aad isha ku aragtay inuu noqdo martabada saddexaadna waxay dhahdaan waa xaqul yaqiin ama inaad mubaasharaysay shaygii inaad la dhaqantay oo taabatay oo مثلا malab baa lagaaga warramay شيء ملب لينا ذو معانو عين كاسو عيدات كوكل صنطانا كوشيغا وخبر والغصوهر ديغي لو حلو دواكا كان ومشاهد وعين بيت مركان تاغنتي وضدمسي مركان ضدمسي واحد حقيق ستين وحني ملبي هي وهو بيسي ودنكيسي كرتي واحد هذا هو حق اليقين بوغاري سيدو كله مثلا جنة أخبار بينوغت من نصوص وين الرميني يقينها بين الرميني وبالآخرة هم يوقنون بإله إليه مؤمنين تنبت هيد مركي لسفيني وقوة آخر الرميسان بإله كت المامي سبحانه وتعالى قيامة مركا لطاقو جنة دي نار تولي كينيا وادار كيسا نار تنوى أركيا جنة تنوى أركيا دادك مركا لك لدريريها دولا حسابيو dee jannadii waad galaysaa practically buu qofkii ilaahay uu qoray uu arkaya marka waa saddex martabo oo kala dambaysa bay yiraahdaan qofka mu'minkii marka waxa la rabaa iimaankiisu inuu koro
oo isku dayo martabadaha inuu gaadhi karo. waxa isha la saaro iyo waxa la rumeeyaa ee cilmiyan loo rumeeyo iyadoo labadaba aad rumaysantay baa rumayntoodu kala sarraysaa. sida nabiyullaahi muuse ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa waa loo yeedhay nebi muuse, ilaahay baa u yeedhay si loo soo siiyo kitaabkii towraad ahaa. kitaabkii towraada baa rabbi siiyey subxaana wa tacaala. 40 habeen buu halkaa joogay. kadib ayaa ilaahay baa uga warramay. warka ilaahay ma khabar ka yaqiinsan ma jira. ilaahay baa u waxyoodo waxa loo sheegay nebi muuse oo adiga dabadaa dadkii aad ka timid dibi bay caabudeen. muuse saamiri ninkii la odhan jiray ayaa dibi u dhoobdhoobay oo wuxuu yidhi haadaa ilaahu muusa. waa kanba nebi muuse ilaahu daydaye. dabeetana waa sii caabudeen. nebi muuse markii arrintaa loo sheegay wuu cadhooday, aad buu u cadhooday. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa walamaa rajaca muusa ilaa qowmihi ghadbaana asifa, isagoo cadhaysan oo aasif oo murugaysan ka xun waxa dadku sameeyeen ayuu soo noqday. laakiin markuu goobtiisa soo taaga u arkay muxuu sameeyey? qaala bi'sa maa khalaftumuunii min bacdi acjiltum amra rabbikum wa alqa alalwaaxa wa akhada bira'si akhiihi yajuru. ilaahay wuxuu leeyahay markaa cadhadii ku dhacday muuse markuu arkay ficilkii, xataa kitaabkii looxaantii uu sitay wuu tuuray baa ilaahay yidhi, oo looxaantii dhulku ku tuuray. walaalkiina madaxa iyo garhkuu qabtay isagoo gilgilaya nebiyullaahi muusa. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa markaa aayaddan qur-aan u tacliiqinayaa nebigu, xadiidka imaamu axmed warinayo. nebigu muxuu ku sheegay? laysa alkhabaru kalmucaayana buu nebigu yidhi. warku la mid ma aha waxa la arko. nebi muuse markii looga warramay calayhi salaam wa calaa nabiyina afdal asalaati wassalaam, markii looga warramay in tolkii dibi caabudeen wuu cadhooday unbaa ilaahay yidhi. markuu se arkay wuu ishayn kari waayo wuu bururay ilaa uu kitaabkii uu sitay looxaantii uu dhulka ku dhuftay oo ay ka jajabtay oo walaalkii uu madaxa iyo gadhka qabtay isagoo gilgilaya. sida awgeed waxa marka la arko waa yaqiin ka sarraysa yaqiintii caadiga ahayd. nebiyullaahi ibraahim baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inuu yidhi, isagoo nebi ibraahim wuxuu rumaysnaa in ilaahay dadka soo noolaynayo siday dadka kaleba u rumaysan yihin. haddana wuxuu yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta. rabbi arinii, ilaahayow waxaad i tustaa dadka dhintay sidaad u noolayso. markaa wuxuu rabaa inaanu khabar qura noqonin, inuu isha saaro balsaa wax loo noolaynayo. awalam tu'min baa ilaahay yidhi, miyaanad rumaynin in ilaahay soo noolaynayo? qaala bala walakin liyatma'ina qalbii buu leeyay. waan rumeeyey, laakiin waxaan rabaa qalbigaygu inuu sii xasilo oo mataahaati tasawuraat uu ka xasilo oo aan ficliyan arko dadka marka la abuuraya caynka ay noqdaan. ilaahay markaasuu u tilmaamay farsamo uu samaynayo. idan ayuha alxiba, yaqiintu qofka mu'minka ahi si jasmiyoo go-an waan shaki iyo murantoona ku jirin waa inuu rumeeya wixii ilaahay yidhi rumeeya. ilaahay subxaana wa tacaala rumayntiisa, nebiyullaahi moxamed rumayntiisa, aakhiro rumaynteeda, kitaabka qur-aana rumayntiisa, arkaanuliimaanka laynoo sheegay oo dhan yaqiiniyan waa inaynuu rumaynaa.